isniintii waataynu gallay doorashada maantana waa maalin khamiisa dhowrkaa cisho ee ka dambeysay maalinteenu codeynaynay ee doorashada ahayd waxaynu kala qaadanaynay wixii warar ahaa iyo hawluhu meeshay marayeen. maanta warkaan idiin sheegaynaa waxaa weeye in waataan hore idinku tilmaanay in tirintii ay bilaabatay oo ay degmooyinka ka bilaabatay. tirintii gobollada qaarkoodna way soo dhammaatay, gobollada qaarkoodna weli waa lagu jiraa. maanta waxaa jidka kusoo jira iminka oo soo socda waxaa weeye Sanaag, Sool iyo weliba Saaxil. Burco waxaan rajaynaynaa ama gobolka Togdheerba in berito ay hawlihiisu isagana ay soo dhammaadaan. hadday maanta dhammaadaan beritina ayna soo gaadhaan wey micnuhu. gobolka Awdal isaguna waa la mid. Awdal qudheeda waxaan rajaynaynaa haddii ayan caawa iman berito subax iyaguna way nala joogaan. hawshoodu waa dhowdhowdahay laakiin weli waxbaa u dhinnaa. gobolkan Maroodi Jeex oo aynu joogno waad ogtihiin oo waa gobolka ugu goobaha badan. waxaanu inta badan ku hawlanayn oo ku mashquulsanayn waxaa weeye goobaha kala saaristoodii iyo soo ururintoodii soo xereynta. culaysku meel walba waa jiray gobollada laakiin kani waa kasii weynaa. waxaa inta badanna ay ahayd gobolka oo weyn isla markaana goobuhu isu dhow yihiin. marka taasi waxay keenaysay culays fara badan waktigii lasoo noqonayay ku saabsan oo ay halkan gelayeen markaa safaf dhaadheer iyo kuyo dhaadheer. yacni goobihii oo isugu soo ururayay xarunteenna halkan ayna ka fogeynaya Mingseng. taasi waxay dhalisay in wakti badan la sugo oo hawshaasi la qabto. hase yeeshee markii dambeeto waxay noqotay in la wada qaban kari waayo oo qof walba laga qori kari waayo, laakiin la yiraahdo inta laga istilaamo ama laga qabto sanaadiiqda haddana la yiraahdo soo noqda subaxii. marka halkaasi waxaa ina kaga luntay waqti badan baa ina kaga lumay oo runtii ahayd sidii loo kaydinayay, sidii loo qabanayay iyo waqtigii kala saarista. waxyaabo kaleeto iyaguna xag farsamo ah way iska jireen oo xoogaa culays iyaguna keenayay ayaa iyaguna iska jiray. imika waa la wadaa gobolka Maroodi Jeex way yimaadeen Balligubadle iyo Sallaxleba waa soo xiroodeen, gacanteenu ku haynaa. waxaa inoo dhiman Gabiley iyo Hargeysa, labadaa degmo. Hargeysa sidaa la socotaan shalay gelinkii dambe baanu bilownay ilaa xalayto waa laga shaqaynayay goor dambe saacado dambe ilaa 2 subaxnimo ee saaka ayaa lagu gaadhay. saakana sidii caad ahayd waa la bilaabay, haddana way socotaa. waxaanu rajaynaynaa in ay naga soo dhammaato maalmaha dhow ee soo socda. intaasi waa warbixintii gobollada sida ay u kala socdaan. Gabiley baa ii hadhay oo aan ku daray idan raacinayaa. Gabiley insha allahu waxaanu rajaynaynaa saaka inay dhammaato oo ay timaado iyaduna galabta ama caawa midun. wax intii ka dambeysay aanu halkeenu ku wada hadalnay wax caqabada oo kaleeto oo yimi mayn jirin. tirinta si fiican baa loogu guulaystay. hubintii halkan iyo gobolka iyo gobol walbana la sameeyey. isla markaasi dee xarunta ay imanayaan komishanka doorashooyinka qaranka xaruntiisa weyn ee halkan aynu joogno. halkan ayaa haddana gobolladii iyo hawshoodu ay ka bilaaban doontaa insha allahu. taa weli maynaan gaadhin. markay isu yimaadaan ayay bilaabanaysaa. iyo wixii kale ee farsamooyina iyadana ama dacwadaaba hadday jiraan iyadana markaasi ayaa la qaban doonaa. wax kaleeto oo warbixina oo dheeraado intaa dhaafsiisan idinma hayo. intaasay ku dhayin haddaad su-aal ay weydiinaysaan.
يعني كل الشيخ واجوكتا waxaan malanayaa berbera iyaduna waa soo socotaa ma laakiin sheekh baa tiri way degma u imanayaan degmada marka laga yimaado degmadu gobolka ma soo marayso maxay imanaysaa toos bay u imanaysaa halka kan marka taasi waa taa commissioneradii iyaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa inta goobodan idin sheegay soo socday iyaguna waa iman doonaan qaarna goordhow bay soo gali doonaan qaarna caawa qaarna berito marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in aanu beri gelinka dambe halkan dhamaantayo aanu isugu nimaadno tirinta dib looguma celin tirintii caadiga ahayd bay ahayd maxay tahay wax dib loo celiyo sanaadiiqdii oo dhan la tirinayay may jirin laakiin sida caadiga goobaha jira dacwada ka yimaadaan ama goobo ay xisbiyo qaarkood dareen ka muujiyaan kuwaasi bay ahayd adeer laakiin wax la wada tiriyay sanaadiiqdii oo 103 ay lahayd gabile dib loogu noqdo xabad loo tiriyay may jirin saas ayaan hawsh ku socotaa waana ku sheegay inay galabta insha Allah iyagana la filayo waxa jirtay markii la galayay diiwaan gelinta waqtigaasi markii caruur qof yar uu meesha soo galo goob kasta ha ahaatee oo ay ka shakiyaan qofkii supervisorka la oran jiray halkaas isagoo maamulayay waqtigii diiwaan gelintu ilmahaasi su'aala la weydiin jiray daadiisa la weydiin jiray wayna sheegi jireen haddii markaasi shaki galo waalidka u yeedh baa la oran jiray waxaan xusuustaa markaas waan joogay Boorame inaan yar weydiiyey waxay tiri waxaan dhashay waxa ugu qoran kaarka inay dhalatay 2000 ayay sidatay shahaada waxay doonaysay markaasi markay isdiiwaan gelinaysay in ma 2002 bay dhalatay waxayna sheegatay inay dhalatay 2000 marka halka waxa ku jira sanado gooni baan ula baxay inantii yareed baan wareystay waxaan runta ii sheeg goorta dhalatay way ii sheegtay inay yaro been sheegaysa ma ahayne way qiratay waxay tiri anigu 2002 baan dhashay laakiin halkan 2002 bay ku qoran waalidka ma u yeedhisa ma u yeedhi maayo oroska tag sidii bay ku tagtay laakiin waxa jiray qof aanu ka shakino oo isnaano malaha da'dii 16 ma gaarin ama uu gaaraya waqtiga doorashadu ay ku beegnayd markaa kuwa caynkaas waxaan u yeedhi jiray waalidkood oo aanu oran weydiin jiray in ay maxay tahay da'da jireen haddii ay ku adkaystaan inay da'da jiraan asagoo anagu aan ka shakino markaa kitaabka quraankaanu gacanta u saari jiray inan baa jiray isaguna ku dooday da weyn sheegtay oo yiri da'daasaan jiray dabadeed hooyadii baan u yeedhnay wiilkaaga imise u jiro intii sax ahayd bay sheegtay oo daad macnaheedu ay tahay inay ka yar tahay waqtigii la doonayay in la diiwaan geliyo da'diisu ka yaraanayso islaanteen waxba garan maysay aniga garanaya wiil waa hooyadii waa tii dhashay buu sheegaya marka waxyaabahaas oo dhan baan soo marayay oo jiray laakiin commissionku waa ku dadaalay inuu xitaa markii dambe ka saaro wax allaale wixii ay u arkayeen inay meesha ka maqan tahay liiskii dambe halkan soo gaaray kama dambaysta waanu ka saaray marka anagu ma ogin imika waxaanu ku taladeedu ahayd in wixii kaar aanu siinay ay da'doodu waqtigoodu ay gaadhay. Salaam alaykum.